walaalka wuxuu i weydiiyay su'aalo fiican waxaan rabaa inaan ugu jawaabo si waafaqsan waan ugu jawaabi doonaa si sax ah horta buuga aasiis waxa qoray Cabdifaadi sax is the Quran available waa wax saas oo kala ah Allah ayaa mahadsan oo maladeeda saxay waan kaga jawaabi doonaa 20 kaaga su'aalood oo dhan maxaa yeelay waan aqriyay buuga waan kaga jawaabi doonaa 20 kaaga su'aalood insha Allah mid koowaad dhammaan naxwaha carabiga waxa laga soo qaatay quraanka wuxuu ahaa buuga ugu sareeya carabiga buugaas oo heerkiisa aad u sareeyo dhammaan naxwaha carabiga waxa laga soo qaatay quraanka waa buuga naxwaha sida ay tahay quraanku waa buuga naxwaha sidiisa quraanka ayaa laga soo qaatay quraanku marna ma yeelan karo wax qalad ah waa mid koowaad mid labaad adigoo soo qaatay mastaradu waxay leedahay cabir oo aad tir cabirku waa uu qaldan yahay waa hadal aan macquul ahayn mid labaad qabiilada kala duwan ee carabta idinku wad garanaysaan carabiga Dr. William Campbell isagana waa ila ogol yahay qabiilada carabta dhexdooda naxwaha uu isku bedelaa qaar ka mid ah qabiilada carabta xarafka dhadiga ah qolada kale carabta ka mid ah si kale ay u garanayaan waa hal eray oo qabiilada macna kale u leh xitaa macnaha jinsiga wuu isbedelayaa ma ii sheegi kartaa inuu quraanka naxwihiisa qaldan yahay maya sidaas ay tahay quraanka naxwihiisa waa mid sare oo hawli ku socda markaad eegto waxaa jira buugaag badan 12 qalad oo dhanka naxwaha ah 22 qalad naxwaha ah Cabdifaadi 22 qalad oo naxwaha ah ma kula tahay dadka Kiristaanka inay sax karaan qaladkiya heli kara ma ogtahay cidda heli karta muslimiinta daaciyada muslimiinta ah sida az-Zamashqari maxay ka dhaheen naxwaha quraanku waa mid aad u sareeya midkaasi oo saxay waxay carabtu qaldi jireen naxwaha quraanku waa mid sare si loo cadeeyo quraanka naxwihiisa inuu sareeyo waxay bixinayaan tusaalooyin midaasi oo 20 su'aalood ka wada jawaabi doona waxay bixiyeen tusaale markaad akhriso quraanka qoomkii Luut alayhi salaam waxay beeniyeen dhammaan rusushii Dr. William Campbell wuxuu yiri qoomkii Nuux waxay beeniyeen rusushii waynu la soconaa taariikhda waxa loo diray hal rusul oo kaliya ah hadaba taasi waa qalad naxwaha ah quraanku wuxuu ahaa inuu dhaho qoomkii waxay beeniyeen rasuulkoodii ma ahan rusushoo dhan waan ku raacsanahay luqadda aniga iyo adiga aan isla garanayno waxay taasi ku noqonaysaa khalad laakiin markaad akhrido buugaagta ay qoreen carabta waa maxay quruxda quraanka fasaaxada quraanku waa sababta loo yiro rususha halkii rasuul kaliya uu yahay ma ogtahay sababta maxaa yeelay rusushoo dhan gundhigooda wuxuu ahaa mid qura inuu jiro hal eebe dhanka tawxiidka ku saabsan alla weyne subxaanahu wa ta'ala ayadoo la oranayo qoomkii Huud alayhi salaam qoomkii Nuux waxay beeniyeen rasuulkoodii markii si dadban loo fiiriyana waxay beeniyeen rusushoo dhan ee quruxda fiiri fasaaxada Allah ayaa mahad iska leh waxaad moodaa qaladna ma ahan mid la mid ah taasi quraanku wuxuu leeyahay kun fayakunu ahaw noqon waxay ahayd in la dhaho kun fakana waan ogolahay wixii tahay dhanka naxwaha ah kun fayakunu waa carabiga laakiin kun fayakunu waa xilli la soo maray wuxuu leeyahay Allah wuxuu ahaa yahayna samayn karaan wax tay xilli la joogo iyo mustaqbalkaba